waxaa Lai Adeegsaday TALAMUGE iyo kuumade somaha safartan waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo insha Allah dadka Ree Garissa way garab istaageen aad bay garab istaageen safartan waxaan rabaa inaan ii sheego Joofle ban la tartami maana Duusin waa been sasma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Your Excellency, the Governor of Garissa County, and Deputy Governor, and County Commissioner, as much as I would like to shorten my speech, I would like to request the host MP to allow me to speak on some few issues, please. And Your Excellency, it is by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala that we have convened here to celebrate this auspicious moment, Jamhuri. Previously, we used to have a PC's provisional commissioner, and it never crossed their mind. It never crossed their mind to conduct such. And Your Excellency, and I know you have done a lot for this county. And when you were coming from your office, I was with you. And I can attest that when you were coming here, you were driven on a tarmac road. You have not set your feet on any maram road. And that indicates that you have done something good for our ward. Secondly, across the cemetery, we have Medina Level 4 Hospital. Mwenye macho hambiwi tazama. Mwenye macho hambiwi tazama. Your Excellency, anyone can go and see what the county government of Garissa have done. And I know in the pipeline there are very important and crucial projects, including theaters, wards, maternity for our women. And visibly clear here, we have two tanks. Naioni Amaji. We always had a lot of problems with water, but recently tukona maji ya kutosha. And 500 meters from there, we also have a newly elevated tank on Tumaini ground. Whenever I pass there, I see it overflowing. And that indicates that the neighborhood and the environment around there have plenty of water, Your Excellency. And also, when it comes to water, I have had the opportunity to sit with the MD, who happens to be my brother, DC. And you know, Your Excellency, when opportunity is given to you, a lot of people will say things. Some will praise you, some will talk ill of you, but at the last moment, you will be vindicated if you do good job. Waxaan rabay inaan meeshan aan u sheego governaha markaan imaanayna xafiiskiisa ilaa meeshan laami baan ku soconay. maaram kumana soconin taasna waxay tusinaysaa governor inuu shaqo qabtay soo saas maaha marka qof xil qaade eed buu qaadi marka dad badan baa laga yaabaa inay hadlaan aniga ma hadlo laakiin markaan hadlahayo runtan ka hadlaa runtan sheega hospitalkana arkaysaan Medina Level 4 Hospital waxaa la dhisay waxyaalo fara badan governorna wuxuu soo wadaa arrimo aad u muhiim ah waxaan leenahay governor after completion waxaan ka rabnaa inaan asiso staff iyo medical facility oo dadkoo dhan ay maxal dhahay u imaadaan oo aan kidogo marka Your Excellency waan ognahay shaqooyin fara badan qabatay biyaha waad qabatay waxaan la hadlay DC nin walaalkay ah oo la doolaal wuxuu ii sheegay mega project is coming up from ADC or waxaa lagu pamgareynayaa against the gravity ila mtaqaana bula dhagax waxaan rabaa inaan u sheego Your Excellency wax walba waxaa la yiri yaamba walba waxay qodo hoosteed bay dhigtaa soo maaha soo saas maaha governaha haddii insha Allah uu shaqo qabto waan ognahay wax badan buu raadinayaa
waxa lagu xukumi doona wuxuu qabtay Soomaha waxba hadii la aynin wax ya laga sheegin markii ugu dambeysay haduu wax qabto wuxuu naga soo raadiyo ha naga helo hadii laakiin wax uu waayana adu sameyn waayo adu waxaan wax noma qabo Soomaha ugu dambeyn siyaasan ku jirna waqti xasaasiya been iyo propaganda wala wada hadaa maqashaan Joofle waa sidan ma jiro aniga waan taaganahay township ban u taaganahay tii ugu dambeysay waad ogtihiin dad fara badan bay ugu goobtay Soomaha waxa laga imaaday Soomaaliya Ethiopia Mandera Wajir Fafi Isiolo Ijara Soomaha waxa la adeegsaday just give me 1 minute waxa la adeegsaday TALAMUGE iyo KUUMADE Soomaha safartan waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo insha Allah dadka Ree Garissa way garab istaageen aad bay garab istaageen in kastoo shaqo lacag iyo wax walba la adeegsaday safartan waxaan rabaa inaan sheego Joofle ban la tartami maana Duusin waa been saasma Joofle ban la tartami maana Duusin waa been. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.